مصدرك أي مقام يكون بدأ كسلامي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام قدومي سؤال شيء وديني حدي أديه وقلاته يا رب أنا كتوابه وحيان كوجا. xilligaas dhacdadu ay dhacaysay koob iyo labaatankii January aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weli cadde waxaa soo wacay 5 saac iyo daqiiqado la jira taliyaha saldhigga howlwadaag Shucayb Cabdi Maxamed wuxuu ugu wargeliyey gaadiid muqaadaraad wada inay soo galayaan oo xiriirkooda iyo xogtooda uu haayo soona socdaan hortaga muqaadaraadkaas iyo howlahaasna horay amarkan ku siiyey oo aan ka shaqeynayno muddo waxaa lagu soo qabtay iyo hadday dad tahay hadday agabtaan maxkamadda lagu keeni jiray markuu intaa ii sheegay waxaan la wadaagay taliyaha gobolka Saadax Umar Xasan aan ku yiri taliyaha riboodkaas ayuu soo bixinayaa taliyaha saldhigga isla markii taliyaha wuxuu igu soo celiyey wuxuu yiri jaboodayaasha waxaa jooga qismaha waaweyne korneel waaweyne oo hadda taliyaha deegaanka qaybta guud wuxuu yiri la xiriir meel ka soo geli karaan gaadiidkaas waxa la helo waaweyne wuxuu yiri waxaa jirta wadooyin annaka aanan xukumin oo jaboodayaasha xiranka madax bannaan laakiin annaka jaboodayaasha waa la xiran bacdeen taliyaha intii aan ku celshay wuxuu jaboodayaasha hal la xiro hal la shaqeeyo aniga waa baxay waxaan tagay saldhigga wadaag waxaan u tagay Shucayb oo diyaarsan shaqadiisii howlkiisa u diyaarsan oo la joogo taliyaha waa bari waxaan ku yiri qaabkee rabtaa in shaqadan loo wado oo xogta ardayda iyo macluumaadka sidee ku soo baxayaan meel kasta waa xiran tahay Shucayb wuxuu yiri xiriirka aan hayo horena waa u soo qabtay gaadiidkaas haddana waa ay soo socdaan okay aniga waxaan yiri marka waxaan wacay taliyaha saldhigga hodan si operation guud oo noqdo Shucayb uu soo booday wuxuu yiri taliya anaa ku filan wax barbareena ma lahan dhammaan ku wada dhafrin shaqadaasna anaa qabanay sidaas ayuu operation-kii hawshii uu ku galay bacdina waxa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyey in baabuur uu xabadeeyay rasaas isku fureen bacdina gaarigii uu gadaal u baxay ribs uu gashaday waxaan ku yiri wax khasaara ma jiraan wuxuu yiri kama faahfaahin karo wax khasaara waa soo baxay meel intaan soo maray wadana mar labaad soo celiyay wuxuu yiri waa gudoomiye degmada hodan maxaa gaaran ku yiri igana uu soo jawaabin sidii ayaan goobta ku yimid waxaan la kulmay tagay nashada gudoomiyihii dhaawaca dadka anagu soo horreeyay darawalkii u waday gudoomiyaha gaariga ayaa aqoonsaday meelay aan soo maraa ayadoo qoray lagu haayo weliba staafkii yar hadda maqan oo la yiraahdo carab qoray ugu qabtay wuxuu waa telefishin hidaa qoray sidii ayaan ku imid waxaan xaqiijiyay gudoomiyaha bulshadiisa dhaawacoodii aan arugiyay bacdina labada igal gudoomiye saraakiisha aan yeeray waxaan ku yiri walba staafka uu wato qoryaha ka qaado saldhigga lagu wada xiray sidaas ayaan ku wardignay sarti ayay saraakiisha aan ku soo xareeyay bacdina staafkii nin kamid ayaa la waayay oo Shucayb staafkiisa kamid ahaa بعد الله شوعي ويصل لفرحان سي بي ان سي تفني كيفاس ايام وتشوف انا ممكن كهاي اي